حليمة يعقوب ayaa si weyn u soo shaabaxay kana soo muuqday bogagga hore ee saxaafadda waddanka Singapore bishii September ee sanadkii 2017. Marwa Xaliimo ayaa noqotay haweeneydii ugu horeysay muslimad ah oo madaxweyne ka noqota dalka Singapore. Singapore oo dhacdo koonfurta bari ee qaaradda Aasiya ayaa ka mid ah dalalka ugu qanisan uguna horeeya dhanka xasiloonida siyaasadda dalalka Aasiya. Dhaqaalaha dalka ayaa gaaray ilaa $500 milyan iyadoo ay ku taalo xarunta afraad ee ugu weyn dhaqaalaha caalamka. Singapore waxay sanadkii 2017 qaaday tallaabo aan horey loo arag kadib markii ay go'aansatay in madaxweynaha dalka oo xil sharafeed ilaa xad muhiim ah oo muddo 6 sano ah xilkeedu yahay loo qoondeeyo musharaxiinta qowmiyadda Malay ee laga tirada badan yahay. qowmiyadaas ayaa ah muslimiin haysta madhabka Sunniga. Xaliimo Yacquub ayaa loo soo xushay xilka madaxweynaha sababtoo ah waxay ahayd mas'uulkii ka soo jeeda qowmiyadaasi ee soo maray xil sare maadaama ay soo noqotay afhayeenka baarlamaanka. markii ra'iisul wasaaruhu magacaabay ayaa dad badan ay ka soo horjeesteen in ay noqoto madaxweynaha dalka oo lagu sharfo. Xaliimo Yacquub waxay dhalatay bishii Agoosto sanadkii 1954. aabaheed asal ahaan wuxuu ka soo jeeday Hindiya halka hooyadeedna ay ka soo jeeday qowmiyadda Malaawiyiinta. aabaheed Yacquub oo ahaa waardiye ayaa wadna xanuun u geeriyooday iyadoo 8 sano jirta. hooyadeed ayaa soo korisay iyada iyo 4 caruur ah oo kale. waxayna ku soo koreen nolol adag iyagoo ku noolaa hal qol oo kaliya. noloshaasi adag awgeedna Xaliimo waxa ay ku qasbanaatay inay hooyadeed ka caawiso raashin ay ku iibin jirtay wadooyinka si loo maareeyo baahida qoyskooda. Xaliimo ayaa mar ay ka hadlaysay noloshii adkeyd ee ay ku soo barbaartay waxa ay tiri inkastoo qoys sabool ah aan ka soo jeedo haddana waxa ii suura galay inaan dhammaysto waxbarashadayda maadaama garab buuxa aan ka helay hooyaday iyo macallimiintayda. taas ayaana fursad ii siisay inaan noqdo maanta qof caawiya dadka danyarta ah isla markii aan bilaabay shaqadayda. Xaliimo waxa ay dhammaysatay barashada cilmiga xuquuqul insaanka iyo qaanuunka iyadoo martabada koowaad ku qaadatay shahaadada digriga sanadkii 1978. 2 sano kadib qalin jabinteeda waxa ay guursatay Maxamed Cabdalla Xabaashi oo ka soo jeeda dalka Yemen. ayna isla soo dhamaysteen waxbarashada jaamacadda kaasoo mar dambe noqday ganacsada caanka ah dalkaasi. wuxuuna caan ku ahaa inuu ku weheliyo xafladaha iyo munaasabadaha rasmiga ah. shahaadada masterka ayay sidoo kale ka qaadatay jaamacadda qaranka Singapore. isla jaamacaddaas ayayna ku diyaarisay shahaadada PhD-ga iyadoo ku samaysay culuumta xuquuqul insaanka iyo qaanuunka. Xaliimo waxay xubin ka soo noqotay xisbiga shaqaalaha shacbiga ee ka arrimiya dalkaasi iyadoo sidoo kale soo noqotay afhayeenkii 9aad ee baarlamaanka dalka Singapore sanadihii 2013 ilaa 2017 iyo waliba xubin baarlamaan sanadihii 2012 ilaa 2015. waxay sidoo kale soo noqotay wasiirka horumarinta bulshada iyo arrimaha qoyska sanadkii 2012. hase yeeshee Xaliimo Yacquub waxay iska casishay xilkii afhayeenimo iyo xubinnimada baarlamaanka iyo waliba xubinnimadii xisbiga shaqaalaha qaran iyadoo go'aansatay in ay u tartanto xilka madaxweyne ee dalkaasi sanadkii 2017. waxaa durbaba bilowday olole xoogan oo astaan ay uga dhigtay aan wada jir uga shaqeyna samafalka. ololahaasi ayaana noqday mid macnihiisa ay ka dhabayso iyadoo sheegtay kadib markii ay guuleysatay inay madaxweyne u tahay guud ahaan shacabka Singapore aysan eegaynin kala duwanaanshahooda diimeed. waxay sidoo kale ballan qaaday in ay horumarin doonto nolosha dadka danyarta ah ayna kaalmad degdeg ah gaarsiin doonto qoysaska saboolka ah iyo in ay ka hortagayso mustaqbalka dhibaatooyinkooda dhaqaale. Xaliimo Yacquub waxay ku guuleysatay xilka madaxweyne ee Singapore iyadoo wax tartan ah aan gelin kadib markii lagu ammaanay in ay u qalanto xilkaasi iyo waliba in 4 musharax oo kale oo kula tartamay xilkaasi ay buuxin waayeen shuruudihii looga baahnaa. Xaliimo Yacquub waxay aad caan ugu tahay dhaleecaynta iyo inay ka soo horjeesato dagaalada iyo rabshadaha ku salaysan isirka iyo kala duwanaanshaha qowmiyadaha degan dalkaasi Singapore. Xaliimo ayaa lagu tilmaamaa in ay tahay qof naxariis badan oo niyad dabacsan. waxay seegeeda kula noolayd hal qol oo kaliya sanado badan balse waxay mar dambe iibsadeen guri weyn oo 5 qol ah. si kastaba Xaliimo Yacquub oo 63 sano jir ah ku dhawaadna 40 sano ku dhex jirta siyaasadda dalkaasi Singapore ayaa la sheegaa in ay jeceshahay ciyaaraha kubadda cagta waxayna kubadda la ciyaartaa xulka kubadda cagta dumarka ee dalkaasi. Xaliimo ayaa ah sidoo kale haweeney jecel in ay gasho jikada oo karisa raashinka guriga
mana ahan haweenay xiisaysa cuntada fudud ee maqaayadaha. sanadkii 2001 Xalima Yaquub ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta shaqsiga ugu waxqabadka wanaagsan dalkeeda, waxaana sidoo kale loo aqoonsaday haweenaydii sanadka kadib codayn uu sameeyay wargeys caalami ah sanadkii 2004. waxaa si rasmi ah loogu daray sanadkii 2014 liiska haweenka ugu caansan dalkaasi Singapore.